السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانا خيارتك وحين شانلكي جامعة سي ومانتا iyo mar kaleeto sidaad iiga sugaysanba barnaamij ku saabsan barnaamijyadeedii oo maantana halkay joognaa waa su-aasha maanta waxaan joognaa beertii maama Soomaali ee ku taalay magaalada la yiraahdo Mokowe ee wax yar u jirta magaalada weyn ee caanka ah kuna caan baxday dalxiiska ee magaalada Lamu. maanta waxaan joognaa Mokowe iyo beertii maama Soomaali bal barnaamijka intii aan ku guda jirno waxaan taaban doonaa meelo fara badan horumarka maama Soomaali ay ka gaartay magaaladan yar ama tuuladan yar baan iraahday ay xoolo ku dhaqday iyadoo ka bilowday zero oo maantana maasha Allah ay waxba barnaamijyo badan project badan ay ka sameysay ay ugu weyn taaba lo'da iyo hoteelo iyo guryo ay ka dhistay bal qaabkaas iyo sida ay ugu sahlanaatay ayaan maanta rabnaa inaan guda galno maama Soomaali laftarkeeda ayaa naga ogolaatay inaan wareysi la sameeyno nasiiso iyadoo nooga hadli doonto barnaamijkeeda iyo sida ku bilowday iyo maanta heerka uu marayo bal maanta meelahan waxyaabaha cajiibka ku ah oo maanta aan kala kulmaa waxay ka mid tahay dhulkan waa dhul aad iyo aad u qurux badan waa dhul maxaa la yiraahdaa maasha Allah bal haddii aan yara fiirino dhulkan waxyaabaha uu ku caan baxay waxa ka mid ah bal fiiri biyaha dhihin dhulkan biyo la'aan kama jirto waxa way biyihii baa meel walba iska yaalo hadda meeshan saad arkaysaan roob baa da'ay roobkii meesha da'ay baa dhulka iska galaayo saad arkaysaan maxaa la yiraahdaa dhulkan waa dhul oo maxaa la yiraahdaa oo xagga maxaa la yiraahdaa biyaha iyo biyo la'aan kama jirto wadankan area-dan waa area maxaa la yiraahdaa aad iyo aad maxaa lahaa barwaaqo ah roobkii baa iska mar walba da'ayo dhulka waa iska cagaar waa sanadkii oo dhan hadaya de whole year dhulkan waa dhul maxaa la yiraahdaa oo barwaaqaysan saad arkaysaa hadda meeshan biyaha ku jira bal fiir ilaahan ku dhaariyay meesha meel abaar ka dhacaysa may kula egtahay waad u jeedaan maasha Allah waa dhul maxaa la yiraahdaa raho meelahan oo kala jecel waa garanaysaa meelahan biyahaas oo kaleeto caleemahaas ayuu korboodaa maasha Allah beerta maama Soomaali waatan beerta iyada nooga warami doonto sida xaalkeeda ay tahay beertan sida la ii sheegay waa ilaa iyo 10 kar camal waa dhan tahay laakiin qaybtan waa qayb kaleeto laga jaro waay bal halkaan markaan fiirino halkaan waxa ku jiro weyla yar yar ku jiro lo'da hadda way maqan tahay waxa la yiri waa la foofiyay saakay waxay jirtaa banaanka kuwan laakiin waa ku yar yaraa oo macnaha iyaga ma bixi karaan marka kuwan halkaan ku jiraan barnaamijka maamada iyadana way soo deernaysaa iyadana bal nala sii daawada weylii halkaan ku jiraan maasha Allah runtii waa meel aad iyo aad u qurux badan weylahan saad arkaysaan waa dhowr xabo ah maasha Allah ilaahay barakeeyo waa meel maxaa la yiraahdaa xooluhu ku noolaan karaan bini'aadamku ku noolaan karo kan waxaan u maleynayaa hadda inuu dhowr maalin ka hor inuu dhashtay waa mid aad iyo aad u yar waay kan saad arkaysaanba maasha Allah halkaas waa lo'dii waxaa kaleeto meesha jooga xeradii iyadana maxaa la yiraahdaa oo ariga beertiisa kor ayaa loo qaado xogaa waa kan laakiin ariga hadda way maqan yihiin kulligood insha Allah waan sugaynaa saaka waxaan ku soo hiraysanay meeshaan anagoo rabnay inaan macnaha barnaamij qurux badan oo aad adinka xiisaynaysaan inaad idin soo gudbinayaan marba jecelnahay runtii channelkan haddii aad daawanayso haddii aad tahay qof xoolaha jecel iyo waxyaabahaas animalska fadlan channelkan waa channelkaagi haddii aadan jeclayn xoolo iyo waxyaaba noocaas oo adduun magaalo aad jeceshahay waxaan ku leeyahay channelkan channel adi ashaq ku leedahay ma ahan channelkan waa channel oo ku caan baxay maxaa la yiraahdaa xagga horumarka xoolaha maadaama anaga Soomaaliya hadana waxaan jeclaa mar walba waxyaabaha oo la xiriira animalska maadaama anaga pastoralist xoolo dhaqataan anaga nahay soo xoolo dhaqataan ka soo jeednaa waa kana moorada u jeedaan halkaas waxa lagu gubayaa hiishi waa kana hadda maasha Allah lo'da hadda way maqan tahay laakiin markaad meeshaan fiiriso geedaha iyo xaaladooda markaad fiiriso runtii maasha Allah waa dhul aad iyo aad u qurux badan waa dhul aad iyo aad beautiful place waay
beerta ilaa iyo halkaasay sii jirtaa. waxaa kaloo la yaab leh imaamada ay sheegtay waxaan geedahan ujeedaan kuwan oo geedahan aad iyo aad u qurux badan oo qaarkood loo isticmaalo sidii waxaa la caaw laga dhigi jiray. waxaasoo geedaa wax la beeray ma jiraan, waa wax natural u soo baxa waay. roobka markuu da'ale wax soo baxle waay. waxaasoo geedaad arkaysaan hal geed oo la beero kuma jiro, kulli waa natural. markaad fiirsan geedkan saan u weyn oo kale hadda markaad fiiriso waa geedo aad iyo aad u qurux badan. geedkaas oo kale hadda bal fiiri, geedkaas asagaas ka soo baxay natural oo soo baxay, waa qaab dabiici ah maasha allah. bal hadda lo-dan sugayna hadduu ilaah yiraahdo. geedkan bal fiiri, laan ku dhaariy fiiri geedkan fiiri, look at this gate, beautiful. waa geed natural ah. waa geedkan oo kale waxaa laga yaabaa adiga 100 sano hadduusan jirin 50 sano waa jira geedkan. sanka xag ma laga geliyey nabar buu noqday, dad waa nuga joojiyey. ayo waa lagu celini. sacan indha kool baa la dhahaa. kan sacan indha kool baa la dhahaa. maxay ay tahay baybigan iyadoo wadato September markaan imaanaynay baybigan gaari baan ku soo qaaday. baybigan hadda wuxuu jiraa September buu noqonayaa adigu 1 year. kan kaas guduudka ah hadda waa around 1 year wali ma gaarin. gaarigan ku soo qaaday gadaashiisa kan markaas soo guurayno looda inta keenay. hadda kan halkan ku dhishto soo iibiyay. kan waa la soo gada. okay inda kool baa la dhahaa. is beautiful ka. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك. marka qayb loodeena waxay u badan tahay loo cadcad. maxay ay tahay ma sha Allah cadeydii Soomaaliya amal waaye. loo cadeydii Soomaaliya amal waaye ma sha Allah tabaaraka. marka ilaahay bay mahad oo dhan u sugnaatay. ariga lama hadda soo ma xaroonaayo. ariga hadda dhow bay imaanaya. marka iska soo ciri ya waxba kuma yeelayso. You won't do nothing. odayga xalay xagga fadhiyay ku soo aruurtay. dooda dadka dabkana way jeceshahay isku waa. habeenkii marka ay qarqarto kala daba loo shidaa. daba loo shidaa. sabaha inay isku luleysay jeceshahay. ina cigaal ma aragta. ani maxaan kugu yiri waxaad ii malaynaysaa aadan inaan waxba aqoonin. ama ibi magaca inaan aqoon laakiin ani wax kasta ishaan ka aqaana. waxaan dhan musiiga xifdisay. odayga magacooda mid uu aqoon kuma jiro iyo habartiisa iyo wixii dhalayba wuu garanaya. marka asay Canada uu ilmuhu la joogay 9 bilood buu naga maqnaa ilaa September tii hore. marka hadda dhow uu soo noqday maalin buu la joogay. hadda waa markii labaad oo maaragta uu hadda imaanayo. marka looda asaga garanaya odaygu wax fiican. ani wuxuu asaga xoogaa haddaan barbaranayaa laakiin muxumi ma sha Allah tabaarak. muxumin sacan uu riman yahay uu dhali rabaa insha Allah. calooshiisa weyn soo ma arkaysa. katana tan weesha hortaagan baa ma xasuus ma baashi tii xalaad ii sheegaysay. ii sheeg musiiga u raadinayo u hela waadash هذا وضعت كيردو تاجنا كان حلا وادي شكت مقعيس كان دبي أنا أذكر كان ها ما شاء الله دبي هذا الموضوع وين هذا كان مقصن وشرا لبسنا ولسه في عنو لبسنا وما دمانين ما شاء الله ما شاء الله تبارك سحن سنجا والله وكا دبي حدو دبي حدو دبي المعدو إلهي وكا وين سحن ما ركتا سحن آذن فيري بال شرف دوا وين لا مريا هل كانت دنا نور كاس ولي دوا دي نبراهيم لقى مريا واي سحن ما ركتا هو يدي سواكنا هذا دوا يدش ماركيسا عنق يدي هشها ما شاء الله تبارك سعاسوا أنا مركب أنا لقمة لسعانة وذا هذا كله ودلائي هذا دو ودلائي مركب وليه رلا لسه مجارين
hadda heer la dhiso marka weli ma gaarin heer la dhiso marka weli ma gaarin sacan ma aragtaa sacan hadda wuu riman yahay beebigiisa dibigaas asagaa dhalay horta lo-da waxaa la ii sheegay markay dhasho horey ka rintaa bil gudaheeda hor kamaysaa ka rimaysaa waa sidii dumarkao kale waa ka yaabay meeshan waa sidaas marka sacan dibigaasuu dhala dibigaas u eg soomaalkiisa dibigaasuu dhalay isku eg yihiin ayuu dhalay haa marka maasha allah tabaaraka kan waa dibiga saddexaad oo ugu soo roon dibiyada ugu roon sometimes waa isdagaalaan hawa isdagaalaan oo dibi la isku keeno especially markii neef oo rimayo muuse aadan telefoon buu meel geysta wuu soo noqonaya telefoonku soo jaaj garaysanaya maasha allah way iska farfariisanaysaa looda somehow dabkay jeceshaha dabka xataa maalinta haddii loo shida ma jeceshahay taas way ku soo aruurtay soo ma arkaysa dabka shidan irtaa dabka shidan bay rabaan maxay ay tahay aad bay dabka u jecel yihiin dabka marka ma qabowga diirnaan ay ka helayaan ha marka maasha allah tabaaraka loodii waa tana very beautiful arigana mar dhow bay imaanaya ilmahooda xaggay ku xaraysan yihiin waa marka halkan lo-da ma gaarta miya lo-da meeshay rabtay seexataa waa free